sababta ma taqaanaa marka adiga oo is ilaalinayay waqti dheer hal maalin marka aad bariis ama baasto ama wax macaan aad cunto miisaanka 2 kiilo kor uu ugu boodo bal videogan maanta dhameyso. Assalaamu calaykum ku soo dhawaada mowduucana maanta waxaan kula qaybsan doonaa 2 qodob oo keeni karta overnight amaba habeen aad seexatay waaga marka uu ku bariyo hal mar miisaankaaga kor u qaadi karaayo iyo qodob oo aad arimahan kaga hortagi karayso. qodobka koowaad cuntada carbohydrate loo yaqaan marka hore waxaad ogaataa waxay xambaarsan tahay biyo badan. tusaale marka aad cunto cuntooyinkan burka ka samaysan jirkaagu wuxuu keedinayaa biyo badan. 1 gram oo carbohydrate ah 1 gram oo bariis ama baasto ama canjeero ama waxa aad cunaysid waxa ku dhex jirta qiyaastii 3 gram oo biyo ah. waana saynis ahaan sida jirkaagu uu u shaqeeyo. marka haddii aad cunto bariiska ama baastada ama rootiga muruqyadaada iyo beerkaagaba waxay durba xambaarayaan biyo badan taasoo ku keenaysa inaad culays dareento ama marka aad miisaanka korto miisaankaaga uu kor u kaco. qodobka labaad